فيقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ayaddu waxay tilmaamaysaa in quluubta yuhuuddu ay la mid ahayn sida dhagaxaanta ee ayba ka sii adag tahayba. marka dhagaxaanta laftoodu waxay tilmaamaysaa in marmarka qaarkood ay khashiyada ilaahay iyo baqashada ilaahay ay u jilcaan dabeedna ay soo daayaan biyo. laakiinse quluubta yuhuuddu ama qofka gaalka una marnaba qalbigiisu una jilcin sida dhagax ugu jilco oo kale. aqoonta markaas sayniska waxay noo tilmaamaysaa in dhagaxaanta badankoodu marka ay dhulka hoose ku jiraan ay inta badan ay ku haystaan biyo dhexdooda. marka cadaadis fara badan oo ku yimaada biyaha ku jira dhagaxa ayaa waxa ay dhacdaa mararka qaarkood cadaadiskaas sare ka imanaya iyo kaa hoose ka imanaya in uu farabato kadibna uu dilaac sameeyo ama uu qarxaba. qaraxaasi uu qarxo dabadeedna biyahaasi ay ka soo baxaan. isagoo markaa qur-aanku ilaahay subxaana watacaala uu ku shabahayo quluubta yahuudda inayna marnaba sidaa dhagaxa oo kale baqasho uuna qalbigoogu soo gelin oo ayna rumaynta ilaahay iyo waxdaaniyadiisa ayna qiraynin. taasi dilaacaasi ay ku yimaadeen cadaadiskaasi marka uu dhaco ay biyahaasi soo baxaan kadibna webiyo ay halkaasi ka samaysmaan. oo aayadda qur-aanka wuxuu leeyahay ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay subxaana watacaala waina min alxijaarati lama yatafajaru minhu alanhaar waina minha lama yashaqaqu fayakhruju minhu lmaa. dhagaxaasi markaasi biyahaasi uu soo saaraya oo qaab heer webi noqonaya waxay ku kala duwan yihiin qaabka kiimikada iyo dhadhanka guud ahaan qaabka ay u samaysan yihiin way kala duwanaan karayaan. taasi laakiin tashbiih waxa uu ilaahay qur-aanka ugu samaynayaa in dhagaxaasi uu marmarka qaarkood xataa isaga laftiisa uu dilaac sameeyo. dilaacaasi dabadeedna waxaa ka dhasha in dhulka qayb ka midii ay samayso in ay kala baxdo oo ay kala durugto oo halkaasi markaasi uu ka yimaado dilaac weyn oo markaasi biyo ama ay soo kala dhex galaan ama dilaacii dhagaxuu dilaacay ee biyahu soo daayay webiba halkaasi uu ka samaysmi karo. waxaa kaloo oo ka samaysma haddii uu heer webi auna gaadhin waxa uu noqdaa waxyaalaha aynu idhaahno spring waterka ama biyaha durdurka ah oo kale ama meelaha maaxda ah oo kale durdurka ah oo kale ayaa ka samaysma.